ururka ONLF toddobaadkii hore lagu qabtay xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya kadibna loo gacan geliyay ciidamada dalka Itoobiya. Mas'uuliyiintu waxay ku eedeeyeen ururka ONLF inay xiriir la leeyihiin ururka Al-Shabaab. warar lagu kalsoon yahay ayaa idaacadda VOA u sheegay in xubnaha ONLF uu ku jiro in lagu magacaabo Mohamed Aani oo ahaa abaanduulihii ciidamada ONLF ee gobolka Dhagaxbuur. Harun Macruuf ayaa qadka taleefanka ee Guriceel kula xiriiray gudoomiyaha degmadaasi Cusmaan Ciise Nuur Taarduleed waxaana ugu horreyn weydiiyay sida ay qabashadu u dhacday. Harun ma santahay anaga sida wararka koonayno degmada Itoobiya oo ay dadka deegaan qayb kamid ah ayaa lagu qabtay 3 nin oo dadka sida nagu sheegay dadka deegaanka ONLF oo rabay inay xuduudda ka talaabaan oo u gudbeen degmada Itoobiya waxayna warkuna soo gaaray bisha maanta oo kooban 7 bisha marka dadka qabteena way isla kadib ogaadeen xaaladdoodana waxay ugu yeereen ciidanka booliiska federaalka si ay ugu wareejiyeen annagu xogtahay nabadgelyada. waa gartay anaga warka waxaan ku maqalay inay ku sugnaayeen gudaha Soomaaliya qabashadoodana ururka Ahlusunna wal Jamaaca iyo maamulkiinaba aad wax ka ogeydeen arrintaas ma jirtaa? والله Ahlusunna wal Jamaaca waa ogtahay iyo waxa weeye dadka beledka la haba ama dowladda Itoobiya ama madax kale xiriir baa naga dhaxeeya dirsonaga ma doonayno deegaanada anagu aan maamulno in dhibaato u talaawdo Itoobiya waa iskaashi baa naga dhaxeeya balse dadka qabtay waa dadka deegaanka oo rimiga ah inoo soo xariireen arrintaas xog bay naga siiyeen sida wax u dhaceen dadka qabteen kadibna waxay arrintaas u dhacday dadkaas iyagoo waxa weeye ka fikiraya dirsonaga iyo deegaanka Itoobiya deegaankeeda inay waxa weeye adil ku noolaadaan oo aan deegaanka deegaanka dhibaatada khas loo dhigin Itoobiya inay dadkaas qabteen una gudbiyeen federaalka booliiska waxa weeye oo ay sidaas gacanta u geliyeen nimankaasna waxay ahaayeen sida xogtu kale ONLF oo kulli aan aaminsanahay inay kulli meel oo Soomaaliya kamid ah ka yimaadeen laakiin dambeena soo ma cadeen karno marka anagu waxaan ku cadeen karnaa arrintaas inay sidaas u dhacday nimankaasna gacanta booliiska federaalka deegaanka Itoobiya la geliyay. waa gartay marka nimankaasi ma dagaal baa lagu qabtay mise niman safar ah oo la qoorgooyo jidka loo istaagay ahayn? waa dagaal ma dhicin laakiin nimanka waa la helay ala kulli xaal information ma laga helay meeshay ku gudbeen iyo meeshii marayay xogtii baa la helay sidaas loo qabtay dadku maanta dee ogtahay Soomaaliya ama Afrika ma wada ciidan oo wada sirdoon wayna jirtay arrintaasi muddooyinkan baa hayn ah in ay wax jiraan dhaqaaqa oo nimankaas kamid ah marka sidaas ayaa nimankaasi gacanta lagu soo dhigay si nabadgelyo oon dib ka jirin waxa lagu wareejiyay waxa weeye federaalka kilka booliiska ah oo amnigooda soo yahay ayaga waxa su'aal weydiinaya waana dhaqanka ka jira deegaanka oo dadka meesha jooga waxay go'aansadeen inaan meeshii degan yihiin xuduudkooda dadka ka gudbay bari ka maalin ismay keenaan loo waxyeelayn. waa gartay marka arrintaas ma waxay ku timid heshiis dowladda Itoobiya la gasheen mise go'aan gaar oo idinku aad iska qaadateen? wallahi waxa Itoobiya naga dhaxay dirsonaag waxaa naga dhaxay inaan cadawga ka kaashano hadduu yahay qolada ONLF ogtahay inay qolada shabaabka xiriir leeyihiin iyo cid walba oo ka wada labadaas deegaan iyo labadaas shacab dhexdooda arrintaasi waa arrin sidaas oo cado aan shaki ku jirin oo la qaynayn marka haddana hawsha waxa fuliyay waa dad reermiya oo iyagu iskood isu xilqaamay arkay nimankan oo dhuumaalaysanaya kadibna gacanta kusoo dhigay kadibna u gudbiyey ciidamada dowladda Itoobiya halka ku sugnaa. waa gartay sideed ku xaqiijiseen in ONLF iyo Al-Shabaab ay xiriir leeyihiin? waa iska caddahay raasimo hadda saakaysa ku jira maahan wax badan ay arrintaasi ayaa anagu xogteeda haynaa oo dee muddan halkaan joogno shabaab la dagaalamay waa nooc xiriir ka dhaxeeya nimankaasi marka intaan xasuusanno waa hadda ka horba kuwaan qabanay shabaabkaas soo gudbiyey albuur soo maray meelo badan oo Soomaaliya laga soo gudbiyey waa arrintaasi waa arrin anagu aan xogteeda hayno wax haddaan shaki noogu jira maaha. waa gartay laakiin haddaan mar kale ku weydiiyo idinka ma dowladda Itoobiya aad heshiis la gasheen mise dowladda Soomaaliyeed baa idin xil saartay mise idinka iskiin u qaatay inaad qabataan dadka ONLF ka tirsan oo u dhiibtaan dowladda Itoobiya? Harun xilka amniga deegaanka naga saaran waa mid aan shaki ku jirin 5 sano ka hor aan u istaagin inaan shabaab la dagaalano waxa weeye deegaanadana ka sifayno cid walba oo shabaab waxaan rabaa inaan kala xaqiijiyo adoo raali gudoomiye shabaab iyo ONLF midkoodna ma sheegin inay xiriir leeyihiin marka taas aan haddaan ka gudubno tan ku saabsan ONLF inaad qabataan ma dowladda idin xil saartay ma Itoobiya aad heshiis la gasheen mise go'aan dadka deegaanku ay gaar u qaateen weeyaan? wixii amnigeena waxa u dhimayaa deegaanada aan joognana waxa weeye rabaa inay ka tallaabaan si sharci darro ah inaan qabano waajib naga saaran sidaan hadda waxa weeye go'aan ugu sugayno
iyo cid aan inuu xilkaarto ka rabnaa ma jirto waa go-aanna uu mas-uul aan qaadanay waa garta waxa ku dhacaya xubnaha iyo saraakiisha aad u dhiibteen dowladda Ethiopia waxa ku dhici doona sida loola macaamili doono miyaa la idin sheegay damaanqaad ma haysan amnigooda iyo noloshooda inaan halis gaarin marka la eego dhinaca xuquuqda aadanaha iyo sharciyada caalamiga wallahi taasina waa arrin kulay isweydiin baa laakiin waxaan xasuusanahay cidda hadda Ethiopia ay qabatay dad badan ay qabataa jira oo xubnahaas kamid ah waxaan ognahay si fiican loola macaamilay cidii maanta nabadgelyada ka jirta Ethiopia ama ka jirtaba meelo badan hadda Afrika kamid ah aan caqabad ku ahayn oo dhibaatada ku jirtay ka tarjisa waxaan ognahay inaan wax dhiba loo geysan doonin cidii marka dib wadana dee wallahi tartamaya waa dembigeeda lagu qaado waa hawey wax dil u baahan maahan kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Gurceel Cusmaan Ciise Nuur Tardhuleed oo qadka telefoonka ugu waramayay Haruun Macruuf